السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدن كلنتي وناسن كل سوداد برنامج كان كل wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywood ki koonfur hindi maxaa ka cusub ciwaanada waxa qaadanayaan Mamuti iyo Sokara Kartik Aryan iyo gabadha lagu magacaabo Yami Gautam waxa la bixiyay abaalmarinta caanka ee National Film Award markii 72 inacaas iyo xarunta Delhi ee dawladda India laga maamula looga dhawaaqay guuleystayaasha saadartay Mamuti iyo Kartik Aryan waxay isla qaateen best actor Yami Gautam waxay qaadatay tirashada ugu wanaagsan best actress ee qaadatay kalkii waxa lagu qaatay filimka ugu madadaalada fiicnaa filmadii 2024 soo baxay halka article 360 lagu qaatay filimka ugu wanaagsan India idil saadartay markii waxaan isla eegaynaa National Award kii la bixiyay dawladda India ee bixisay ijraayaashku guuleysteen ciwaanada ka soo baxayaan waa markii 72 saxabiyaal la qabanay abaalmarinta caanka National Indian Film Award oo dawladda India ee bixiso inacaas iyo Delhi la isugu tagay dawladda ku dhawaaqday waliba baarlamaanka looga dhawaaqay guuleystayaasha 400 oo film ayaa miis kale soo saaray 34 luqad ama 34 shirkad oo kala duwan oo India sameeyaan ayaa 400 oo film oo kamid ah laga soo xulay 43 bilad ayaa la baxshay waxaana ahayd markii 72 ee dawladda India ku dhawaaqdo guuleystayaasha dabcan markii la dhaho markii noqoto dhanka performance-tiga jilayaasha iyo sidoo kale dabcan directorada saadartay marka waxay noqotay another milestone kale Mamuti ruucadaaga caanka markii afraad ku guuleystay abaalmarinta caanka ee loo yaqaan National Film Award oo ay kaga dhigantay inuu kamid yahay atoorayaasha ugu badan ee biladan qaato 89 u qaatay 93 u qaatay 98 u qaatay qaybta best actor ka hadlayna 2026 ku qaatay filimkii Baryamagum oo uu sameeyay dabcan 2024 biladan dawladda India waxay ku xeen daaban tahay Janaayo ilaa December 2024 filmadii soo baxeen waa sida muuqato oo rasmiga shaac laga qaaday marka Mamuti legendigaas best actor ku qaatay waxa la wadaagay yarka lagu magacaabo Kartik Aryan oo asigana jiliinkiisa ku mutay saxabiyaal sidoo kale tan wuxuu ku qaatay markii la fiirsho bandhiga uu ka sameeyay filimkiisii xiisaha badnaa Jandu Champion wuuna u qalmaa Jandu Champion what a performance uu sameeyay inaba caadi ma ahan saadartay marka laba oo well deserved waa u qalmaan ayaa gacanta laga saaray abaalmarintan sida saxda ah inaca kale atirashada ugu wanaagsan waxa la siiyay Yami Gautam iyo filimkii article 370 ee Bollywood ka ay sameysay ku qaadatay halka sidoo kale markii la fiiriyo dabcan kalkii waxa lagu qaatay best movie for providing wholesome entertainment India idil 2024 filimada ee sameeyay shirkadaha kala duwan 34 luqad aan sheegnay filmo lagu sameeyay filimka ugu madadaalada fiican oo complete package ee dawladda India waxay u dooratay kalkii u dooratay laakiin best feature film filimka ugu wanaagsan laba kala tahay film madadaalo laga helay kalkii loo doortay best feature filmna filimka India idil sameeyay kan ugu wanaagsan article 370 loo doorto Yami Gautam sameeyay shirkadii cusleed saxabiyaal best debut film director ku cusub ee fanka waxa la siiyay Randeep Hoda National Award oo qaatay ogaada filimkii ahay Sawantaria Veer Savaskar uu director-ka ay ku qaatay wax weyn u tahay marka category-gaas inuu ku guuleysan Randeep Hoda best director oo directorada India ku cusub ee National Award sidoo kale waxa soo qaadan karnaa markii la dhaho sidoo kale waxa la soo qaadan karaa best feature film oo promote national social environmental value filimada dabcan dhiiri gelinaya marka la fiirsho deegaanka iyo qaranka iyo sidoo kale arrimaha bulshadana waxa loo doortay Captain Miller oo Danush uu sameeyay 2024 soo baxay waxa kale oo la soo qaatay asigana best director waxa qaatay Amran ninkii sameeyay qaatay Rajkumar Bersami director-ka ugu fiican 2024 India dawladda ee dooratay waa ninkii sameeyay Amran Bersami oo u qalmaa filan caadi ah inuu sameeyay saxabiyaal saaka warqabna sidoo kale waxa la soo qaadan karaa best supporting actor waxa qaatay Vakshag oo sameeyay filimka Bollywood-ka filimka Bollywood-ka lagu qaatay Vakshag laakiin waxa qaatay ruucadaaga caanka Sanjay Mishra qaatay Sanjay Mishra shactirolaha filimada doorar kala duwan qaatay filimkii Vakshag ayuu ku qaatay atirisha caawishada ugu wanaagsan waxa qaadatay gabadha lagu magacaabo Sajana Namidas waxayna ku qaadatay filimkii Maharaja iyo sida FJ Sitbatu caawinaysa ku qaadatay gabadhii oo FJ Sitbatu aabahu aamiya bal magaceeda aan qaado sababta FJ Sitbatu gabadha filimka la jileysay caadi ma sida u disha performance-geeda marka Sajana Namidas ayaa filimka la sii ku qaadatay National Award ay qaadatay waana gabadha dabcan dhabta mataleysay FJ Sitbatu gabadhiisa mataleysay sida muuqata marka waxay u tahay libina u tahay inay qaadato caawiye oo National Award-ka dawladda India ay bixisay biladahaas ugu muhiimsan saxabiyaal category kale fara badan waa la bixiyay markii aan soo qaadano best playback singer xitaa waxa la siinay lagu magacaabo Garad Gambati oo film Marathi ka heesa waxa lagu qaatay filimka Garad Gambati oo Marathi waxaana qaatay Abhay
jabot karmal ay ku guuleystay atirishadana waxa qaadatay best female ee dabcan gabar lagu magacaabo qaadatay Vikram ayadana Malayalam ay ka qaaday filimka ARM oo Tovina Thomas sameeyay ku qaadatay waxyaabo badan la baxshay xitaa cinematography waxa lagu qaatay filimkii Baryamaguum biladaha waa la kala qaybsaday laakiin biladaha ugu muhiimsanaa oo aan ka hadalno xarajan in kuwaas ay intaas ka gudbeena best action director xitaa waa la bixiyay filimka Maharaja lagu qaatay Vijay Sethupathi hogaamiye ka ah Tamilka lagu qaatay actionka qaabka loo sameeyay sida hadda muuqato marka meesha waxba la kala arurso saxaabiyal intaas ugu muhiimsan yaana ka tagin xitaa best film markii la dhaho oo Hindi best filmada waa kala qaada ogaada best film oo Hindi waxa qaatay Srikanti filimkii Rajkumar Rao oo matalay ninkii ganacsadaha ah sheekadii macaaneed la hadda ka hor ka sheekaysanay best waxa lagu qaatay best Hindi movie markii Bollywood ka gooni loo bixiyay filimkii ugu fiicnaa luqad af Hindi lagu sameeyay Srikanti ayaa qaatay markii la dhaho filimka ugu wanaagsan ee luqad lagu sameeyay Canada waxa qaatay filimka Mithya ayaa ku guuleystay oo loo doortay best Canada ama dabcan reer Karnataka filimkooda ee ugu wanaagsan best Malayalam film asigan waxa loo doortay saaxiibayaal filimka lagu magacaabo Feminija Fatima ayaa la doortay kan ma daawana walana kulli laak film jira way Feminija Fatima 2024 filimadu soo baxo kamid ahay waxa kale soo qaadan karnaa best Marathi waxa siga dhaa Marathi shaqo ku maliine best Tamil film yaa loo doortay Ryan Dhanush waa laga tumay macnaha ogaada national award waa waxaan markii hore waxaan dhaana filimka guud la bixinaa oo dawladda ee dhacda kana ugu wanaagsan India idil dan kadib gobol walba luqad kasta ee sameystaan filimada u soo baxay ayaa filimka ugu fiican loo dooranaa marka Ryan wuxuu qaatay filimka ugu wanaagsan ee Tamil la duu sameeyeen 2024 Dhanushana directorkaas ka warqabno Telugu yaa la siiyay committee Kurulu filimkan sheekadiis caadi ma ka warqab dhalinyarada wadeen oo dabcan aan daawanada kor 4 stars in committee Kurulu asigan waxa lagu qaatay ama Kuralu best Telugu film ayaa loo doortay filimka Telugu ugu wanaagsan waxa ogaatiin kalkii waxa lagu qaatay waa best movie providing wholesome entertainment Indio idil filimada ee sameeyay dhammaan shirkadaha kala duwan filimka ugu madadaalada fiican ayaa lagu qaatay kalkii halka filimka lagu magacaabo article 370 lagu qaatay filimka Indi ugu wanaagsan dan kadib gobol loo kala baxay iyo luqadaha Telugu Tamil Bollywood filimada ashar lagu kala qaatay marka waxaan rajeynaa national award intaas nooga filan 2025 waa dhimantay lama bixin dawladdan caajiska waxaan kala yaabay corona dib u dhigay marka 2024 ay soo marayaan 2025 filimada la sameeyay kullee sanadka dambe ku dhawaaqaan isla sanadkan hadda 2026 uu socdaa aragtideena ka dhiibtay shakhsiyaadkana ka dhawaajinay xaflad weyn oo ka dhacaysa dalhiya tagi doona baarlamaanka tagi doonaan sidoo kale qof kasta waxa la siin doona bilad sharaf ku qaadan doona marka national award is not easy wax saaran ma ahan marka ana soo qaadana sheekooyin kale ee jira waxa qaybka toxic goosgooskiisa mar dhawaal soo bandhigay 26 Agoosto soo baxa toddobaad firaaqo heesta haddaba yaash iyo teamkiisu waxay shaaca ka qaadeen mar dhow in goosgooska filimkan uu diyaar noqon doono sidoo kale tan waxay sheegeen 8 bisha Agoosto ayaa goosgooska la soo bandhigaa sidoo kale tan waxa jiri doonto promotion aan caadi ahayn oo India idil ka bilaabanayo laakiin 8 Agoosto yaash xaruntiisa Bangalore reer Karnataka ayuu dabcan ku soo bandhigi doona goosgooska filimkiisa Toxic oo la aaminsan yahay score kasta inuu sameyn doono Rockin Star yaash markii noogu dambeysay saaxiibayaal waxay isaa ka warqabna 2022 daawane markaas oo KGF chapter 2 kun koror ku gaaray this one waxa la projectigan waxa loo arkaa in kun koror iyo ka badan uu ka tilaabi karo Toxic 8 Agoosto goosgooska lagu soo bandhigaa Bangalore 26 kan uu soo baxa sidoo kale tan mashruucan dabcan marar kala duwan oo baaqday laakiin distaan baaqasho ma jirtay waxaan sugan doonaa rikoorada uu sameyn doono kun kororna dabcan yaash waa hortaala waxa laga rabaa filimkan inuu kun koror gaar hadii kale niga jab leewa dhinaca kale waxa soo qaadan karnaa ciwaanada qaybkee markii aan eegno MBK filimkiisa 110aad ama MBK Triple 11 loogu yeero Gobijanda Milani director uu ka yeeshay shaqadiis ay socoto marka hore teamku waxay qorsheynayeen 3 December 2026 soo baxda biyaqada sanadkan laakiin Bravas ayaa ku dhawaaqay filimkiisii Fawzi in la daawanayo 3 December sadartay markooda MBK waa goyna dhag wuxuu galayaa feestada sankarantiisa u badan tahay sida la soo daabacayo toddobaadka koowaad ama toddobaadka labaad ee wuxuu aadi doonaa saaxiibayaal Janaayo sida la soo daabacayo filimkan waa film action packed fariintiisa gangster ee tahay la wada sugayo marka MBK iyo Gobijanda Milani risk ma qaadan karaan sababta Bravas cid tartan la gali karta male feestada sankaranti 2027 aadaan saaxiibayaal sida haatan la soo daabacay dhinaca kale Ram Charan iyo Sukumar filimka ay ku midoobeen Ram Charan 17 loogu yeeray si ku meel gaar ah waxa shaaca laga qaaday mar kale lagu celishay bisha November shaqadiis inay bilaaban doonto no more delay dib u dhac kale ma jiro Ram xoogaa qaliimo waxaas garabkii dhibaato badan oo soo gaartay markii shaqooyinka filimkii Bedi uu wado meel iska soo saaray Sukumarna sheekada uu qoro final draft uu sameeyay goobihii lagu duubi lahaa waa la diyaariyay sadartay marka grand scale movie noqon doona oo shirkadda caanka Mythri Movie Makers iyo Sukumar Writing Company Sukumar ayaa isla maalgelinayaan Ram Charan 17 marka November shaqadiis bilaaban doonta saaxiibayaal dan sanadka dambe waxa la 2027 qaybiis ugu dambeeyay in uu soo bixi doono u badantay
dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka ee akhil filimkiisa Lenin 8 maalmood iyo ganacsi uu sameeyay saaxiibayaal filimkan hore uu super hit u noqday Towards Blockbuster la u socdaa 8 days talugu wuxuu ka soo xareeyay 42.7 karoor sheerka laga helay waa 25 karoor ganacsigiisa guud filimka Lenin iyo 8 maalmood waa 56.7 karoor kulle week endiga markii laga baxo 65 karoor meelahaas uu gaari doonaa 31 karoor qoliyaha cadirada qaybeen saami ahaan ka heleen sidoo kalena filimka markii hore saaxiibayaal waxa lagu gatay 22 karoor lacagtiisu soo celiyay 9.15 karoor faa'iido laga helay T2B waxay la Towards Blockbuster kulle week endiga filimkan uu Blockbuster noqon doonaa idinkan aragtidiina ka dhibta sidoo kale waxa soo qaadan karnaa qiyaaraya markii la fiiriyo filimka dabcan si gaar ah looga hadlaa haddaan qodobkan eega asigan wuxuu taabanaa filimka lagu magacaabo Spider-Man waxa la gudaha India intuu qabsado wacdaro u dhigi doona sababta si tigidhka loo iibsanayo waa waali projectigan waxa la 31 bishan July markuu soo baxay 35 karoor meelahaas 40 karoor ay ku daafuran doona sababta 100,000 oo tigidhu gadaal iska marsi ayadoo daawashadiisa ay ka dhimantay almost 12 maalmood 13 maalmood ay ka dhimantay marka waxa Tom Holland oo superstar weyn oo India laga jecel yahay magaalooyinka waaweyn multiplexka tigidhka la sii dhameysana hubanti ahaan waxa la filimkan dabcan Durandar 2 iyo Border 2 oo filimada sanadkan ugu bilaabasho wanaagsan inuu kala dhaxgala laga yaabo 35 karoor meelahaas ka tilaabo oo ganacsiga Border 2 day 1 uu ka tilaabo sida u badantay dhinaca kale Kajal Agarwal iyo Shariya Talbeed maanta waxay soo bandhigeen goosgooska filimkooda dabcan la wada sugayo ee lagu magacaabo saaxiibayaal dabcan sheekada filimkan waa The Indian History waa sheeko ka hadlayso cirbadaha dadka daawooyinka ay ku samoobaan kiis xasaasi weyn hindi badan xitaa ka hor imaada wadanka la ceebana dheen daawooyinka soo saarna qalad waa lagu hayo laakiin filimkan gudiga filimka faranshadada waa siiyam jimcadan oo soo baxay 4 bishan July Z Studio dabcan cajaladaha qaybinayso goosgoos adaga laga soo bandhigay sheeko sensitive ee cirbadaha iyo daawooyinka dhacay waxa dadka la siiyo iyo dhibaatooyinka la kulmaan problem series ka hadla marka let's wait and sugana saaxiibayaal kulli goosgooskiisa very strong waa content oriented waa kan si adag kuma furmay laakiin hadii sheekada la amaano waxa laga yaabaa filimka inuu gadmi doono Shariya Talbeed iyo san ka dhawaajin atilashada caanka Kajal Agarwal hogaamiyaal ay ka yihiin waana film Bollywood ee saaxiibayaal marka aqyaari muuqaalkan intaas nooga eegay aad u maasantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh